xiisad colaad cusub iyo dhaqaaqyo military waxay 15kii cisho ee la soo dhaafay ka ahaayeen kuwa ka taagan saacad kasta xadka ay isku hayaan labada dal ee Suudaan Waqooyi iyo Itoobiya waxayna sii kordhayay u diyaar garowga dagaal oo u muuqday in dhinacyadu ay muujinayaan bilowgii colaadda ayaa ku bilaabatay markii labada mas'uul ee ugu sareeyay Itoobiya iyo Suudaan ay ku guul daraysteen inay xal wada jir ka gaaraan arrimahan ka hor ka qabsoomidii shirkii urur goboleedka IGAD ee Jamhuuriyadda Djibouti markii uu booqasho qaadan lahay 2 maalmood oo Addis Ababa ku joogi lahaa ra'iisul wasaare Xamduuga Suudaan ay ku soo gaabatay wax ka yar 4 saacadood taas oo durba loo fasiray inay tahay bilowga isfaham waaga labada dal 3 maalmood kadib baaqashadii safarka waxaa bilowday colaad cusub oo sababtay dhimashada dad kala duwan sida ay tabiyeen warbaahinta labada dal ciidan hubaysan ayaa weerar ku qaaday saldhig ay lahaayeen kuwa Suudaan dhimashada saraakiil sare oo muhiim ahayd ayayna warisay madaxtooyada Khartoum in weerarkaas ay ku weyday ciidanka Suudaan waxa ay qabsadeen badi dhammaan dhulkii lagu muransanaa iyo waliba dheeraad oo ay wax ka badan 50 kiiloomitir ku jiraan gudaha dhulka Itoobiyaanka ee aan lagu muransanayn taas oo muujinaysa inay dagaal ku soo galeen goobahaas waxaana la muujiyay dhulka buuraleyda ah oo ciidankoodu ay ku dhigayaan dabaaldeg u muuqda mid military Itoobiya oo dagaal kaga furan yahay gudaheeda ayaa hadda u muuqata mid biyo qabow badan ku shubaysa sidii ay u damin lahayd xiiskas kasta oo uga timaada dhinaca Khartoumka jaarkeeda ah waxayna u muuqataa inaysan sameeyeen iska caabin xoogan oo ku wajahan dhacdadan si ay uga dabaalato waayaha adag ee ay hadda ka wajahayso gudaheeda iyo waliba sidoo kale dariska dhow qoraal lagu baahiyay warbaahinta Itoobiya laguna qoray afka Carabiga oo ka yimid xagga Abiy Ahmed ka Itoobiya waxa uu hoosta looga xariiqay inay dalalsheeyo lug weyn ku leeyihiin arrimaha u dhaxeeya labada dal waa Suudaan iyo Itoobiya waxaana isla qoraalka rajo looga muujiyay in colaadda la dhameyn doono lagana doogan doono waqtiga adag ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Dameka Maknon ayaa u tagay Khartoum sidii wada hadallada labada dhinac looga dhigi lahaa kuwa mira dhalaha waxaa muuqata inay Addis Ababa qiimo kasta ku bedelanayso colaad ay hadda la gasho jaarkeeda Suudaan Waqooyi Khartoum oo isku aragtay inay haysato fursad weyn oo siyaasadeed oo ay ku qabsan karto dhul beereedka baaxadda leh ee lagu muransanaa waxay doonaysaa inay soo ceshato gabi ahaanba meelahaas militariga Suudaan ayaana qabsaday badi aagaga dagaalada oo dhan waxayna waxyeello u geysteen beeralayda Itoobiyaanka ah ee sida adag u diidan fikirka Carabiga sida la cadeeyay labada dal waxa u dhaxeeya muran salka ku haya dhul beereed ku yaala magaalada Al-Fashqa oo ku dhex taala xuduudda caalamiga ah ee la aqoonsan yahay ee Suudaan haasa yeeshee ay degan yihiin beeralay Itoobiyaan ah waxaan aaminsanahay in dhibaato kasta lagu xalliyo wada hadal ha yeeshee ciidankeenu waxa ay gudan doonaan waajibaadkooda inay dib u soo celiyaan dhammaan dhulkeena imika waqti xaadirkan waxay dib ula wareegeen 60% ilaa 70 dhulka Suudaan ee aan leenahay sidaasi waxa yiri wasiirka warfaafinta ee Suudaan Faysal Saleh oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters warbixinada sirdoonka Suudaan waxa ay xaqiijinayaan diyaar garowga tababarka iyo hubaynta ciidankana soo weeraray inaysan ahayn maleeshiyaad balse ay ahaayeen ciidan tababar military qaba oo caadi ah ayuu warkiisa raaciyay wasiirka arrimaha warfaafinta ee Suudaan Waqooyi dhinaca kale wasiirka amuuraha dibadda ee Itoobiya waxa uu ku eedeeyay militariga Suudaan inay weerareen fulinayaan weerarkaas tan iyo 9kii bishii November dalagyadii beeralayda Itoobiyaanka waa la bilaqaystay xerooyinkooda ayaa la soo weeraray waxa laga hor istaagay dhulkooda ay beertaan sidoo kale tiro shacab ah ayaa la dilay oo la dhaawacay tani waa amuur ay ka shaqeynayso Suudaan Waqooyi ayuu yiri Addo Dameka Maknon wasiirka amuuraha dibadda ee Itoobiya ahna ra'iisul wasaare ku-xigeen Maknon waxa uu ka soo jeedaa deegaanada lagu dagaalamayo qowmiyadiisa Amxaarada ayaana isku aragta inay leedahay dhulka lagu dagaalamayo xirifaaltanka iyo dhul isku haynta labada dal
ma aha mid bilaabanaya dhammaadka sanadkan dhammaanaya ee 2020 waase qarniyo hore oo ay ishayeen Tigreega, Amxaarada iyo Suudaan oo isku haya dhulka muhiimka ee buuraleyda iyo dhulka banujeedka ee beera falashada ku fiican.